waddooyinka ugu fiican ee aad ku yarayn karto adeegsiga moobaylka si aad ugu noolaato nolol dhab ah, nolol dhadhan leh, nolol caadi ah. adeegsiga badan ee moobaylka noloshaada wuxuu ka dhigi mid u eg sidii in remote control lagugu hagaayo in aad mareeg ugu xidhan tahay dad kale. adeegsiga badan ee moobaylka maanta wuxuu ka mid yahay dhibaatooyinka ugu badan ee xataa isbitaallada dadka qaar loo geeyo. inuu qof dhakhtar ballan u qaato si uu uga kaalmeeyo yaraynta adeegsiga moobaylka. gacantaada iyo moobaylka inay isku dheggan yihiin, ehel, qaraabo, maslaxadaadii adduuni aakharaba aad seegto. tusaalahan waa macquul in uu ku soo maray weli qofaad saaxiibatiin ma ballanteen si aad waqti u qaadataan, kadibna saaxiibka ama adiga xitaa intii aad wada fadhideenoo dhan moobilka ma ku dhegtay ama asaga ma ku dhegay. haddii uu qof watsapka kala soo hadlo uu u jawaabayo adigana uu kaa mashquulay oo aad isweyddiiso waa maxay qiimaha qofkan agtiisa aad ka leedahay. waad ballanteen inaad hawl ka wada hadashaan, laakiin wuxuu ku mashquulsan yahay moobilka.